midda kale haddii aan idinku daro 10 youtuber ee Soomaalida ee soo qaatay horta waxa lagu farxaa ah in 7 qof oo kamid ah ay 500 oo kun kor u dhaafeen 500 oo kun ay kor u dhaafeen waa 7 labana wax yar baa uga dhimanba macnaheedu waxa weyn ku dhawaad 9 qof oo Soomaali oo youtuber ayaa 500 oo kun kor u dhaafay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh dhammaan asxaabta ku soo dhawaada waa YouTube channelkii walaalkii Kaari Official. hadday tahay markii kuwada channelka soo booqato horta subscribe yar wax ka si like iyo comment iguna waa dhankiina. Maanta halkan waxaan soo fadhiistay wax kala ma maanta halkan waxaan u fadhiyaa idinkuna u fadhidaan halkan maanta waxaan u wada joognaa ay isku soo fadhiisano wax kala ma sida ciwaanka hoose aad ku soo aragteen waxaan rabaa inaan weyn wax ka ogaano 10 youtuber ee Soomaalida ugu subscribe-ta badan subscribe-ta aan ka hadlaya ma kaliya views-ka laakiin yaa subscribe le in badan maqlaysin subscribe bay rag qarsan jireen wixii dhawaati laga soo dhaafay hadda qof walba la ogaanayaa ama ha qarsan ma haday marka maadaama ay ka fududaato qof walba la ogaanayo dhammaan youtuberada Soomaalida iyo subscribe-kooda dhammaantood kama gaarsiin laakiin 10 qof top 10 youtubers oo Soomaalidu leedahay nooc doona baan maanta rabaa inaan la wadaago waxaan u soo diyaariyay sidii u kala sareeyaan 10 qof ee u sareeyay kaliyaad haddii mid aad jeclayd ama taageeri jirtay 10 qof ee u sareeyay ka mid noqon waayo oo naga raali aansa kaliyaad hadda waa 10 qof ee u sareeyo 10 youtuber ee hadda u sareeyay bas kaliyaad waxaan u bilaabi doonaa oo ama u horeysiin doonaa mar walba siday 10 qof xagga sare ka soo bilaabi doonaa ka tobnaad ee kaalinta dambe ku jira ilaa in ka gaarno qofka wanka galay nin walba qofka youtuberka taageerto ama youtuberka ka filaysay inta ay ka badan helay ama inta ay ka yaraa halkan aad kala soconaysaa marka hore intaanan gelin oonan bilaabin subscribe fadlan saan aan uga mid noqdo insha Allah markan xigta way dhici kartaa moogti wax walba idinka ku xidhay ma wax meel kale laga suugo wax walba idinka ku xidhay inaan dee soo galo 10 ka sareeyo ma aha horta 100 ka sareeyo soo gaarsiin 10 ka ay dambe wad maasantiin intaas oo iska kaftan ku soo dhawaad hadda hadda iska bilaabana 10 qof ee youtuber ee ugu sareeya daba kaalinta tobnaad qofka kaga jira waa kuma kaalinta tobnaad youtuber kaga jira waa Arrimeen 10 qof ee u sareeya qofka u dambeeya ee tobnaad xagga sare ka soo bilaabi doona saaridi shay Arrimeen oo wuxuu haystaa sahalkaaba ka arkasaanba 440 oo subscribe masha Allah Arrimeen hadda imika marka la eego mala sanad ka hor mise 2 sano ka hor gibiisu inkastoo in badan youtuber weyn ahaan jiray oo ilaa 11 youtuber ahaa oo youtuberada ugu waqtiga dheer u yahay youtuberada haddana sidoo rabi waxa marka hore may dhicin Soomaalida youtube ku yareed gadaal ayuu ka soo kacay gadaal ayaa laga soo jeelaaday wixii si ka soo hagaageen hadda wuxuu ku jiraa kaalinta tobnaad bardhu meeshu gaari doono inamooga inuu rajaynayo ma dhigtoona dee shanta horeysa soo galo laakiin Arrimeen waa kaalinta tobnaad hadda xaaliyan waqtiga lagu jiro number 9 isaguna waxa ku jira Hawraar Media Production Hawraar ba ku jirta oo ah YouTube laga leeyahay isagana hargeysa ay laga leeyahay filaya laakiin de Soomaaliland buu shaqeeyaa waxa weeyaan heesaha iyo waxa aad arkaysaa saaxiga oo soo dhigo Hawraar waxay ku jirtaa kaalinta 9aad waxayna ku haysaa kaalinta 493,000 oo subscribe taa macnaheedu waxa weeyaan 500,000 ama 500,000 waxa uga dhiman kaliya 7,000 oo subscribe kaalintii 8 waxa soo galay iska si garan saban waa ninkii inta badan la haystay معارضكيسو حق فنانينta aad isku dhacsanaayeen bariyahan aad looga cabanayay Faarax Murti ilaa tahay Faadimiina Ilhaan Xarabo Abuukar Mahdi saasoo tahay oo waxa soo dhaleecay la socota hadana wuxuu ku jiraa kaalinta 8aad Soomaalida youtuberada ugu badan 3,000 kaliya uga dhiman 500,000 oo subscribe wuxuu leeyahay 497,000 oo subscribe saaxiga oo saka ka saama hadaba ku jira kaalinta 7aad oo soo galay oo ka mid noqday 10 qof ee u sareeya Liibaan Jaamac waa nin caan oo Ameerika xaggaas jooga waa channel-adii horeeyay ee Soomaalida ee xagga heesaha soo deeyay fiidiyoyihiisa aad loo jeclaan jiray ilaa hadda dad wala jecel yahay isagana wuxuu leeyahay 546 hadda 46 wuxuu leeyahay sida xagga hoosaba ka aragtaan Liibaan Jaamac
546,000 oo subscribe wuxuuna ku jira hee kaalinta 7. aynu sii gudubna kaalinta 6 ayaa ku jira kama dheeraba waxa weyn Dirisle Cabdi waxa weeyaan kale team Dirisle Cabdi iyagana salaamaya waxa kamid yahay YouTube-da iyaguna isagana saameynta kule YouTube-ka waxa uu leeyahay saas ay tahay liibaan jaamac ayuu kun dheeri kun subscribe kaliya ayuu dheeri uu kaga hayaa kaalinta 6 wuxuuna leeyahay 547,000 oo subscribe waxa ku sii xiga kaalinta 5 ku jira kale dad badan baa markaa wax ku soo dhacay CK ma la isku xigaa kale iyo CK me tobanka ma ku jira CK waxa weeyaan waa laga soo reeyaa waxaana kaalinta 5 isagana soo galay Balambalis Studio isagana waxaan maray Muqdisho meelaha inuu halka ka jiraan maray kulli horta badanka channelada oo heesaha iyo waxa ayaga lama ogaado meeshiis dhabahan degay mar walba wixii meel walba la helaa meel walba sababtoo ah ayagu fanaaniinta bay ku xidhay Balambalis Studio waa 571,000 oo subscribe ayuu kaalinta 5 ku haystaa waana farqi qurux badan oo ay adag tahay in hore loo soo gaaro kaalinta 5 looga qaado haday tahay Dirisle iyo liibaan jaamac hadday tahay Dirisle iyo liibaan jaamac labadaba wuxuu ka sareeyaa wax 20,000 ama dhowr 20,000 oo subscribe ku dhaw marka kaalinta 5 waxay ciriirsaday oo xoraystay oo meel saartay Balambalis Studio yaa haddaba ku jira kaalinta 4 wax yar ayaan nooga dhimanay gaarno qofkii number 1 iyo 2 iyo 3 saddexdii sare kaalinta 4 waxa ku jira team CK ayaa ku jira isaguna kaalinta 4 waxaana uu ku jira tirada ah 583,000 oo qof taasoo ka dhigan inuu 600,000 wax yar jiro haddii aan si kale u eegno oo kule marka loo eego dadka ugu saameynta badan isagii Dirisle badanka Soomaalidu yiraahdaan moogti Dirisle Cabdi iyo isaga farqiga u dhaxeeya waa farqi 30,000 oo subscribe meelahaas ama 9,000 oo subscribe u dhaxeeya ayaa markaa waxaana ka sareeya kaalinta oo kaga sareeya CK oo ku jira kaalinta 4 halku Dirisle ka jira kaalinta 6 haddaba in hore uga socona kaalinta 3 ayaa ku jira kaalinta 3 isagana waxa xoraystay oo meel saartay Tusma Films Canada ee laga leeyahay isagana halka Canada ayuu degan yahay oo saldhig u yahay Tusma Films ayaa wuxuu ku jira kaalinta 3 YouTuberada Soomaalida waxaana uu ku hayaa tiro ah 635,000 oo subscribe oo Soomaali ah waxaanu isagu ka shaqeeyaa waa filmaan ayaa ku qoran laakiin waa heeso awaala aadan haday tahay hebel haday tahay waa Canada aad uga shaqeeya kaalinta 2 bay ku jira kaalinta 2 waxaan meel labada kaalmood iska cadahay Cabdi Askari 2 baa wuxuu leeyahay 665,000 oo subscribe ayuu kaalinta 2 ugu jira Cabdi Askari 2 waxa weeye YouTube-ka isaguna soo daayay badanka in jigjiga laga leeyahay isagana filaya wuxuu soo daayaa heesaha musalsalada ah heesaha la isku jawaabo waa iska garanaysaa waxa weeye ninka fanaaniinta badanka isku diray codkiisa ka soo horeysiya markii doonaya laba fanaan hees isku jawaab meesha tagaa ma taqaan Cabdi Askari 2 waa 665,000 oo subscribe leeyahay waana kaalinta 2 kaalinta 1 waa ninka kaliya ee isleeyay Soomaaliga 1 ee Soomaali wixiisu ku baxaan ee gaadhi doona 1 milyan oo subscribe waxa weeyaan Waqal Studio waxaanu leeyahay 783,000 oo subscribe taasoo macnaheedu ah waxa uu 200,000 wuxuu dheer yahay CK iyo Dirisle u dheer yahay 230,000 taa macnaheedu waxa cid u dhawaan karta ma leh cid ku soo dhawaa ma jirto qofku ugu soo dhaw wuxuu jiraa ilaa 100,000 iyo waxoogaa 1 milyan ninka kooda gaadhay weeyaan ugu horeyn doonaan malaynayo saan rajaynayo maalintii xitaa waxa ku soo biira markaan qiyaasay 2,000 oo subscribe ugu yaraan wuxuu baahan yahay baa filayaa hadduu ku bato 100 cisho kale ama 2 bilood oo kale meelayn uu si uu ku gaadho haddii la eego saasaanta iyo sidoo socdo 10 qof ayaa Soomaalida YouTuberadeeda haysta oo xoreystay oo meel saartay haddii aad halka soo gaadhay fiidiyowga aad ogaatay ilaa qofkii u dambeeyay fadlan aad raaliya subscribe-ta isa inoo saar rabina dhow laakiin hadda isa sababtoo ani lafteeda ficil baa igala xasriba hayaa oo niyo kale wixii dad buu ku xidhayaa oo dee meel kale u tagi maysid oo dadkan baaba ku hayaba dee waxaana la iska 10 ka sariix baa milyan biyaha la raasay
oo arbal inuu maaragtaanay boqolka qof ee horeeya ka rajeynaya inaad gaadhsaan subscribe tayr xun indhaha isku qabta haddaad doontaan bal saara sidaa u saari kartaanba waana waa salaamaya dhammaantiin tan iyo video xiga waxaan isku dayi doonaa in labada cisho hal mar video soo dhigo markay ugu yartahay insha allah imika laga bilaabo in badan baan iska maaragtaanay waa la joojiye waxaa waana lasoo tashaday barnaamij badan baan usoo sameeyey kusoo dhawaada channelkayga haddii aad ku cusubtahay marka waa tahay wixii laga samayn jiray ka samee haddii aad hore usii joogtina waxaa kuu dhiman dhamaystir waalid wasalaam ya dhammaantiinba ciao ciao